باقودك dadku aad ii weydiiyay waxa Soomaaliland miyaynu ka mid nahay mise kama mid yihiin shirkaasi waa qabsoomaya meelaha rag baa ka yiraahdo ma qabsooy hore waa qabsoomaya ninkii wax isla hayo ama guda joog ama dibad joog badata iskeen oo kaalay qolyahana waliba qurbaha jooga xaqaa'iq badan oo gudaha ka jira iyo duruufaha nololeed ee ka jira iyo dhibaatooyinka jira kama warhayno waxa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood inaynu si easy u aragno diyaarno daar easy masalana waxaan xaqiiqo ah ummadani inay wax badan u dulqaadanayso dadkiina had iyo jeer meelaha ka naqdiyaya dadka waxa weeye kaash 15 ka weey waxa la idinka rabaa idinka marka in idin meelaha ka idin hadii alla ku reeyahay idin ka warantaan ma aha halka kan waxaan ka hadlayaa dadweynaha khaasatan reer la solay ama reer maakhir iyo cidii kale ee khusaysiin beesha caalamka waxaa jirtay in qodob maalintii looto shirkii ka socday ceelbo dad badan ay su'aalo iga soo weydiiyeen in case aan anigu hogaaminayay maxay ahaatay shirka wada tashiga aan hogaaminayay arrimaha ceelgaab laga hadlayay baaqodka dadku aad ii weydiiyay waxa Soomaaliland miyaynu ka mid nahay mise kama mid yihiin horta waxaad ka mid tahay baa laga hadlaa oo dood aad ka keeni kartaa waxaad 1993gii shirkii ka dhacay magaalada Haftimo lagu goostay oo lagu cadeeyay oo Suudaan Cabdisalaam gudoomiyay ay ahayd Soomaaliland kama mid yihiin sidaa daraadeed wax cod oo deegaanka marka dastuurka u qaadayna ka qaadeen deegaankeena ma jirin baarlamaan inuu kaga jirno doorasho ka dhacda ma jirto madaxweyne kama doorano marka waxa naga khuseeyaan ba jirin demoogta in la isku xijiyo maaha laakiin waxa laga hadli karaa wixii jira ama cidii ay saysaan iyagana waxaan kula talinayaa si nabadgelyadu wax ka soo wanaag u dhacaan iska daaya sheegashada dad dhul ay lahayn sheeganaysan idinkuna faraha ka qaada arrimaha waqooyiga Soomaaliya marka laga hadlayo kuwa Soomaaliya hogaamiya ama kuwa waqooyiga jooga ma oga xaqiiqada waqooyigu laba qaybood buu kala qaybsanaa waqtigii Ingiriiska qayb la isticmaalsan jiray iyo qayb aan la isticmaalsan jirin oo ka dhaxaysay cooperation wada shaqayn laakiin aan inta isku amaan gelino badan noo amaan geliyo waxa maraya documentiga oo qoran library-ga Ingiriiska way yaala 1960gii ayaa dadka waqooyiga jooga isku soo biiray iyagoo oo markaa ka mid noqday dawladda Soomaaliya 1952gii markii Suudaanka cadal lagula kulmayay arrimo waqooyiga Soomaaliya xuseeyaa laga hadlay iyo koonfurta Soomaaliya xuseeyada qoraal baan hayna oo lagu yirma la isku kiin dara annagu waxaan jeclaan lahayn Suudaan waxa ay dhulkaaga inaan gooni kugu goynay isagoo Soomaalinimo raba Suldaan Maxamuud ayuu wuxuu Soomaali ma kala hadlayso second tan kale labaad dadka qurba jooga iyo guda jooga waxaan ugu baaqaynaa shirka 15ka February dhici doona nin kasta February 15keeda uu furmaya ninkii danaynaya inuu ka soo qayb galo oo ay ka talis baa laga hadlayaa waxaa jirta hadda sidaa la sheegay halka waxa la isugu yimi oo aanu isugu nimi shirkaas muddada badan waliba qurba joogtu muddo badan ay lahayd shir baa la qabto shir hal la qabto shirkii waa la qabtay kii u horeeyana waa dhacay kii ku xigayna bisha 15keeda bisha labaad baa la sheegay waxaan leenahay nimayahow gabadhii masriyada ahayd oo malkaltuu waxay oran jirtay alif leela oo leela iyana riwaayad ku jirine shirkii waa ka qolqol joogtu waa joogtaa waa diyaar dadka loo qabtay waa qurba joogta waxa la idinka rabaa idinka oo si fiican u fekeray si fiican u hadlay si fiican u danaynaya wax alla wixii aad soo dirsanaysaan hadday kun yihiin hadday 100 yihiin iyo hadday 5 yihiinba shirka inaad ka soo qayb gashaan waxa kaloo raacda walaalayaalow hadalkan isdhaafsan oo qaldan oo 100 ka waji leh oo aad ku hadlaysaan iyo personal attack iyo hadalka aan dhan u socdo la garanayn oo aad hadda shirkii aad doonaysaan 4 sano in la qabto markii la qabtay hebel baa maqan iyo heblaha halka jira hebel baa halka jira aad leedihiin joojiya waa idinka codsanaynaa ee joojiya idinkana dani idinkuma jirto dalkana dani uguma jirto waa dhibaato aan inna macna lahayn way xaaladaas dadka arinta wada hadduu nin yar yahay iyo hadduu nin weyn yahay ba hal la joojiyo waxa kaloo jirta dadka halka jooga waa idinka warrooyay boqolkiiba 99 dadka idin soo warraba oo wararka idin soo duuba
ma aha sax badidoodu dadka soo guuray anigu oran maayo qaxooti waa dadka soo guuray oo dagaalka ka soo baxay waxay qabaan dadka halka jooga baa og marka waxaan idinka codsanaynaa barnaamijyadaas oo dhan dadka ka xidha sidii aad dalabteen oo aad doonayseen oo ahayd in shir la qabtana waa la qabtay uga soo qayb gala si sharaf leh oo qiimo leh oo qadar leh wixii siyaasi sheeganaya iyo wixii odaynimo sheeganaya iyo wixii dhalinyaro sheeganaya shirka waa furan yahay magacaygu waa maxamuud xasan hidiida maanta waa 5 January 2025 waxaan joognaa magaalada Baran waxaan shirkan jiraayid ku qabanaynaa aniga iyo rag tobaneeya ah ayaanu ku balansanayn 20 December inaanu halka isugu nimaadno oo la kulano madax dhaqameedka ka bacdina dhulka soo maro oo tabliiq samayno si shirkii mararka badan baaqsaday ay inoogu suurtoodo inuu qabsoomo iyo midnimadii markaanu halkan nimi arrin kale ayaanu la kulannay oo ahayd arrintii ka dhacday Ceerigaabo isbedel degdeg ah baa dhacay ka bacdina guddoonkaanu halka kula kulannay Suudaanka guud kadibna waxa la iclaamiyay shirkii Ceelbu taasi waxay noo fududaysay inaanu wareegii ka baaqsano oo dadkii halka isugu yimid tagno shirkii ka qayb galo halkaas aanu dadkii isku xog wareysanay warar badan kala helay aragtiyihii iyo go'aanadii ka soo baxay shirkana waad la socotaan haday difaac noqoto iyo haday iclaamin noqoto shir guud oo ay ka tashi oo 15 February isugu imanayo muddo hadda laga joogo 2 sanadood ku dhow ayaa gaar ahaan qolyahanaga qurba joogto waxaan dadaal badan gelinaynay inay suurtowdo bal mar dadkeenu inay isu yimaadaan oo ayadoo ka tashadaan iyo xiriirada baraha bulshadu dhinacna waa beneficial oo dee warar baa lagu kala helaayo waa la isku wacyigeliyaa dhinacna dhibtooda ay leeyihiin negativity iyo critical badan baa ka socda iyo aragtiyo qaldan waxa la yiraahdaa macnaheedu cup is half full or half empty inta badan waxaad moodaa inuu half empty ka hadalo laakiin waxa fiican inuu half full ka hadalo hadda markaad aragtidii wax qaldan yihiin ma aha inaad wax naqdiyadid ama cid bileem garaysid waxa ka quman inaad ra'yi keentid ama gudaha joog ama dibad joog oo aragtida wax ku qabsoomayaan inaan keeno haddeerna waxaan soo jeedinaynaa in ay inoo suurtoodo inaanu isu nimaadno oo naqdiga iyo criticismka iyo waxa kan aynu baraha bulshada iyo inaynu walaalayaal iska deeyno shirkaasi waa qabsoomaya meelaha rag baa ka yarada ma qabsooyo hore waa qabsoomaya ninkii wax isla hayo ama gudaha joog ama dibad joog badada iskeen oo kaalay oo ummadda waxaad ku kordhinaysid ra'yi iyo talo iyo tusmaa keena walaalayaal intaas aanu idin soo jeedinaynaa qolyahana waliba qurbaha jooga xaqaa'iq badan oo gudaha ka jira iyo duruufaha nololeed ee ka jira iyo dhibaatooyinka ka jira kama warhayno waxa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood inaynu si easy u aragno they are not that easy masalana waxaan xaqiiqo ah ummadana inay wax badan u dulqaadanayso oo dulqaad badan jiro qaladaadna waa jiraan isku dambaynu nahay shirkan aanu maanta aanu isugu nimi oo adaalab kore bishii shanaad ee bishii koobaad ee January shanteeda ahi waa la idin sheegay oo odayaashii iga horeeyay baa idin sheegay wuxuu daaran yahay shirkaasi wuxuu daaran yahay waxa weeye inta badan runtii maadaama anagu qurba joog ahaan aan dibadda aanu ka nimi inkastoo aan anigu qolqol joog iyo qurba joog baan ahay wuxuu daaran yahay in idinka ayuu idinku wajahan yahay press release kan idinka ayaanu aawgin baanu u qabanay waxa weeye wax badan ayaydan waxay ka hadasheen sida la sheegay wargoor mushirki qabsoomaya hebel baa hortaagan iyo heblaa hortaagan shirkii waa la idin iclaamiyay halkaas aanu uga soo dhoofnay sidii aanu hadda la ku reeyay u qabsoomi lahayd nasiib wanaag waxa weeye waa la idin iclaamiyay shirkii 15 February weeye 15 February weeye dib u dhici maayo waxaad yeelaysaan marka waxaad yeelaysaan dadkiina had iyo jeer meelaha ka naqdiyaya dadka oo inta hebel baa yiri iyo heblaa tiri leh waxay ku haboon tahay inay idin iska daysaan oo ka waantoodaan
oo wixii idinku aydin u aragtaan in dalka iyo dadka iyo diintiina anfacaya aydin haddii laba ku horeeya ka raacataan dalku wuxuu u baahan yahay qurba joog buu u baahan yahay meesha uu ka liicay oo uu haddii laba ku horeeya ka baaba'san yahay waxa weeye waa qurba joog innaga weey dadka runtii haddii laba ku horeeya farta ku godan tahay ma aha dadka gudaha xaqiiqadu waa taa weey dadka dalka iyo dadkaba kala dhantaale waxa weeye waa qurba joog waxay u kala dhantaaleen waxa weeye ummaddu waxa weeye inay isku tashato weey isku tashigii halkii dalkiina aydin idinku aydin ka dhisi lahaydeen oo aydin idinku hoggaan u noqon lahaydeen oo aydin hagi lahaydeen oo aydin maadaama aydin idinkii dadkii aqoonta lahaa iyo dadkii khibradda lahaa intaba aad tihiin iyo dhaqaaleba aydin hagi lahaydeen ayaydin inta badan waxaanu ka shaqaynaa inaynu naqdino wixii yaraayee marba la qabto shirka ceelbu midnimaa ka soo baxday in midnimo waa oo wada ogtihiin in la midoobaa ka soo baxday in la difaaco dalka ayaa ka soo baxday in guurtidaas ay haddii la ku reeyahay hawsha iyada ee maanta taagan inay maamulaan baa ka soo baxday waa ogtihiin shirkani hadda iminka dhacay waa shir odayaal iyo guurti iyo nabadoonno iyo isimo ayay ku wajahnaa oo waxa weeye hawshaas ayuu khaasatan uu ku wajahnaa waxa idinka laydinka rabaa shirkii ay doonayseen ee shirkii siyaasiga ama se ninka qurba joogga ee masiiriga ahaa ee ummadda la doonayay in lagu hago oo haddii la ku leeyahay la doonayo ama siyaasadaan ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama amni ha ahaatee waxa weeye kaash 15 weey waxa la idinka rabaa idinka marka in idin meelaha ka idin haddii la ku leeyahay idin ka warantaan ma aha in aydin ku timaadaan dadkiina wax ku oolka ah dadkiina ama dhaqaale ama haddii la ku cudud ama maskax ama haddii maal wixii aydin haysaanba inaad la timaadaan meesha golaha aydin la timaadaan maanta taasaa la idinka baahan yahay taasaa la idinka fadhiyaa hadhow iminkaba shirkan waxaan u qabanay waxa weeye afeef baa aanu dhigaynaa afeeftaasi waxa weeye hadhow ha oranina wallaahi waxba nalooma qaban shirna waa nooloo diiday haddii la ku yiri masiirka ummaddu caankanu yahay iyo haddii la ku yiri kala yaacsan yahay dadkii ururin lahaa waa idinka weey dadkii ururin lahaa waa idinka weey walaalayaal waxaan idinka rabnaa marka naqdiga intaad iska daysaan kaalaya oo waxa weeye 15 February ayuu weeye kaalaya ninkii aan iman hadhowto yaanu haddii la ku reeyay gidaarada la fadhiisan waxba halkeer maray iyo ma haddii la ku reeyay habar beetraa Soomaalidu habar meel fadhida ligdina wax uga fudud ma halka laga qaloocsho oo ma sida la sameeyo kaale cidii sameyn lahayd waa adiga weey ma cid kale eelna uma qoddo cidina uma maqna waryaa geela jiraydii weey adaa geela jira kaale halkan badkana la doonay inaad timaadid marka waxa weeye waa idinku boorinaya dalkiinu waa qani wixii kale aad ku soo hagi kartaan shan muxuu ahaay resource oo badii leh oo haddii la ku macdantii leh oo petrolkii leh oo xoolihii leh oo beerihii leh tan ayaa laga helaa marka waxa weeye sidii loo maareyn lahaa sidii haddii la ku istiraatiijiyadii policies-kii wixiiba idinka leedinka sugayaa kaalaya waxaan kaloo idin sheegayaa oo idinku adkaynaya warnimayow annaga dhex taagnayn shirka intayadaasoo odaya been sheegi mayno soo garateen maaha qabaa'ilka cid ka maqnayd ma jirin hebel baa maqnaa ninka maqnaana wuxuu soo dirsaday waxa weeye waa nin wakiil ah baa u joogay wax ka maqnaa intii badnayd isimadii iyo cuqaashi way joogeen waa tii la tirinaayay way idin ogeeyeen idinna inta cuqaale la tirinaayay waa ogeeyeen khayr allah idin siiye waxa weeye iska daayay hebel baan maqnaa iyo heblaan maqnayd hadda wixii ka bilowda waxa idinku haddii la ku reeyahay aydin bilaabaysaan waxa weeye istiraatiijiyadii halkaa aynu ka sii ambaqaadi lahayn qalfoofkii haddii la ku reeyahay haddaynu maamul doonayno dadka wax la bidayaa idinka weeye warniman yahow idinka weeye haddii la ku reeyahay wixii dadka idinkaga aadan
war bilaa calaykum waxay dadka idinkaga aadan idinku ay hadda la ku leeyahay gees marina oo ha ku mashquulina wax shimbir way waxba halka maray waxba halka maray iyo reer hebel cidi kama joogin maxaa reer hebel inta joogtaa xitaa haday intay ay go'aamiso wax oo ay wixii hagaagsan yihiin raac